waxaad soo sheegaysaa nebigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kula kulmay samada ugu sarraysa habeenkii la dheelmiyey boqorka boqortooyadiisu lahayn bilow iyo dhammaasho abwaankii gabayga ay ku jirta sameeyey magaciisa oo saddexan waxaad qiimo dhimis aad iyo aad u ballaadhan ka heli kartaa shirkadda korontada ee tik boorama tik waxaad sheegaysaa taariikhdii ay somalilan madax bannaanida ka qaadatay gumaystihii ingiriiska asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat kulanti wacan oo wanaagsan idayl ahaantiinba daawadayaal kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii su'aalaha ramadaanta oo maanta mar kale ay nagala qayb qaadan doonaan dadweynaha ku dhaqan magaalada boorama innagoo barnaamijka ku soo qaadan doonna su'aalo kala duwan oo isugu jira kuwa diiniya kuwa maadiya iyo kuwa madaniya iyadoo dadweynuhuna aynu siin doonno tirooyin si aanay isugu mid u noqonin qofka iyo su'aasha aynu weydiinayno dhinaca kale maanta barnaamijkeenna waxaa si gaaro u maalgelinaysa shirkadda adeegga korontada ee tik ama telesom electric ee magaalada boorama ugu horrayn waxaan jecelahay inaan ku soo qaato asxaabta ka qayb qaadanaysa qofka ugu horreeya soo dhowow marka hore magacaaga maxamed miisaan xasan maxamed barnaamijkan hore ma uga qayb gashay mey maanta ii kow aniga waayahay waxaad dooranaysaa 1 ilaa 5 su'aalahan xagga ku hayo waxaan dooran lahaa 3 waxaad dooratay su'aasha saddexaad su'aasha soo baxday waa su'aashii meeshaba ugu dhibta yareed meesha un maahina ilaa iyo intii aynu dadka su'aalaha soo weydiinaynay su'aashii ugu dhibta yareed abid la maqlo ayaan halkan ayaa kuu soo baxday insha Allah dee rajaynta lag ba ka qabtaa marka su'aasha inaad garato insha Allah inaan gartaa rajaynaya haddii aan garan waayana waxba dhib male marka dambe waxba dhib male waayahay su'aashan waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa taariikhdii ay somalilan madax bannaanida ka qaadatay gumaystihii ingiriiska taariikhdii somalilan ay ka qaadatay madax bannaanida ka qaadatay ingiriiska sawma ingiriiska ay ka qaadatay 1960kii baan u maleeyaa waad saxsan tahay laakiin maalintii iyo bishii baa kaa dhiman maalintii iyo bishii October inay ahayd baan u maleeyaa October baa waan u maleeyaa anuu soo garan su'aashan waxa laga yaabaa daawadayaal badan inay isleeyihiin ninku hadduu 60 ka dhaafin waayo in abaalmarin la siiyaba ma waayo waxa muhiima taariikhdu waa muhiim mar kale balan kuugu celiyo inkastoo haddii sanadkii aad keentay bal isku yaraday taariikhdaas bisha iyo ayaanta ninkaasi waxa u soo baxday su'aashii ugu fududayd haddana wuxuu gartay sanadkii waxaan jecelahay cid kale u buuxisa laakiin abaalmarintiisa waynu siin doonnaa goormay ahayd waxa yaag jooga macallinseed 26 Juun 1960 iminka muxuu yidhi imisadii October baan idhahnaa sax iminka laakiin muxuu yidhi Juun 26 hadda kadib dee kaama siibanayso waayahay maanta waxaan ku siinaynaa abaalmarin aanu ka soo qaadnay shirkadda adeegga korontada ee boorama la yidhaahdo tik waa shirkadda laydhka waad naga guddoomaysaa maanta iyaga ku soo aftur taariikhda madax bannaanidana hayloobin ama xorriyadda gobonnimadooga isla seed baan jecelahay inaan maadaama u buuxiyey isla fursadda siiyo waa macallin waa dhinac kale waa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal may su'aashu waa taw soo baxdoon unbay ku xidhan tahay 1 ilaa 5 unbuu ka dhex boodayaa lambar 3 lambar 3 unbaad ka boodaysaa 1 ilaa 5 kow laftarkeeda dooratay su'aashani ku soo baxday waa su'aal taariikhiya waa su'aashii hore aan ka fogeyn oo u dhow su'aashani waad garanaysaa dee iminka waa jaamacadda camuud laakiin waad garanaysaa dugsigii sare camuud soo maaha dugsigii sare camuud aan garanaya goormaa la sameeyey yaase sameeyey labadaasay isugu jirta bismillaahi raxmaan raxiim dugsiga markii oo ingiriisku dhisay waxay ahayd Ferriston markii la dhigay waxay ahayd November 1952 ayaa dugsiga sare ee camuud la dhagax dhigay
feristonka ugu horreeyey waxaa la dhigay camuud 1952 saxyaana hirgeliyey markaasoo sameeyo iska lahaa dhismihiisa waxaa iska lahaa dowladda ingiriiska oo xilligii gumaystuubay xilligii gumaystaha sax waxaa ka horreeyey somalilan marka taariikhda ku sii darana si fiican 1947kii waxaa la dhisay feristonka ugu horreeyey la dhigay dugsiga sheekh bashiir ee hargeysa ayaa ugu horreeyey waxuu ingiriisku dhiso waxbarasho xagga dugsi ahaanba marka 1947 buu isna waa gartay marka dhinaca kale xilliyadaasi ingiriiska waxbarashadiisuna bilow bay ahayd innagana dadweynaha waxaa la aaminsanaa odayaasheenni dhaqanka iyo dadku aaminsanaayeen in carruurta aan la geenin sababtoo waa la kiristaamaynaya baa la lahaa laakiin fikrad qaldan bay ahayd markii dambe dadkii waxbartay ayaa markaa ku biiray waxaa ugu horreeyey dadkii waxbartay warkaa ingiriiska tegey oo kale cabdi xasan buuni gruunkoodaas ayaa ugu horreeyey ayaa ka mid ahaa cumar cabdi ayaa ka mid ahaa dugsiyada kale qadiimiga ee xilligaa ku dhowdhow camuud ee gobolka waxay ahaayeen labada dugsi ee xawataakada dhexe iyo xawataakada hoose waxaa la odhan jiray geralis amboy baa la odhan jiray aad iyo aad buu mahadsan yahay macallin saad isagoo dee wasaaraddii waxbarashada ka tirsan nasiibkiisa su'aashii koowaad ayuu siiyey iyo dugsiga camuud waxaa ku siinaynaa hadiyad aftura oo ay bixinayso shirkadda tig ayaad naga guddoomaysaa waa shirkadda adeega korontada iyo laydhka waad ku xidhaanaysaa waxay shirkadda telesom oo iyaduna qayb leex ka qaadatay iyo bahda saxaafadda iyaguna su'aalaha weydiinaya maadaama bishii ramadaan ku jirta weliba xagga diinta culummada ha loo badiyo ee asxaabtii oo in loo badiyo weyn xagga culummadana oo la isku dhammaadi iyo diin in la isku daro waa mahadsantii wariye dabcan waxay isugu jiraan diini maadi dhinaca kale iyo taariikhi laakiin nasiibku suu isku raacin oo soo kala horbixi allahu yaclam aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad qiimo dhimis aad iyo aad u ballaadhan ka heli kartaa shirkadda korontada ee tig boorama tig iyadoo kugu soo dhowaynaysa xafiiskeeda kuleh rabadaanta darteed qiimo dhimis ballaadhan baad naga helaysaa markana waxaa soo qabanay waxa ku xiga xagga waayahay ninkana kadib baan kugu xujisiin doonaa magacaaga cabdiraxmaan oo barnaamijkan hore ma uga qayb qaadatay rabadaantii kal hore maxaa lagu weydiiyey berigaa su-aashaas waxay ahayd maxmiyadii ay gadalbursiga galeen heshiiskii ay ku galeen ayay ahayd markaa dee dhinacyo kala duwan laakiin sida qaabkee lagu weydiiyey heshiiskii sheeg ay galeen qodobadii baa laga yaabaa in sheeg lagu yidhi markaa maad garatay berigaa su-aasha way dhaaw waad la weyday maanta markaa maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynaya inuu ilaahay iigu simo bal ka waran mas-uuliyadda maadaa qaadanaya hadday noqoto sannadkii labaad ee aad garan weyda jawaabta su-aashaas mas-uuliyaddaa ma qaadanaysaa waayahay markan waxaa ku siinaya waxaad nambar baad dooranaysaa 1 iyo 3 un ka reeb 1 ilaa 5 lambar 5 laftarkeeda su-aasha kuu soo baxday waa su'aal xagga Soomaaliga si isku tii Soomaaliga ma isku fiicantiin iskuma fiican laakiin waa isku dayay xagga dhaqanka ma sii aha Soomaaliga caadiga waa isku fiican Soomaaliga waxaan ku sheegayaa hal tix oo ka mid ah gabay caana adiguna waxaad sheegi doontaa abwaankii iska lahaa gabayga tixdani waxay ku leedahay boqorka boqortooyadiisu lahayn bilow iyo dhammaasho abwaankii iska lahaa gabayga ay ku jirtay haddaan isku dayo waa xasan sheekh muumin abwaan xasan sheekh muumin waa sax ma ku adkaysanaysaa oo ma hubtaa mise waad ku nasiibsato waxay is leedahay waana sixi kartaa waana khaldi kartaa waa ku nasiibsanaysaa waayahay su-aashaasi jawaabteeda maantana ma haysid insha allah laakiin marka dambe ayaan kuu rajaynayaa inaad ku guulaysan doonto haddii ilaahay idhaahdo markalna waayahay waxaa ku soo xiga magacaaga maxamuud daheeye shirdiid waxaan xoogaa qolada kamarad waxay naga codsanayaan inaan meesha yar bannayno magacaaga maxaa tidhi maxamuud halkan waxaan kuugu hayaa su'aalo dee tii kugu soo hagaagtaba waynu arki doonnaa 2 tiraan kuu sheegi midunbaad doorani su'aasha labaad iyo su'aasha afraad ta afraad baad dooranaysaa su'aasha kuu soo baxday waa su'aal diiniya waana su'aal iska sahlan waxaana rajaynayaa insha allah inaad garan doonto
su-aasha waxay ku leedahay markii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam samooyinka dee samo walba ambiyadii mid ka mida buu ku arkayey samada u sarraysa ee toddobaad nebigii uu halkaa kula kulmay baa lagaa rabaa nebi muuse kumuu ahaa nebi muuse nebi muuse hadda waa samada ugu sarraysa ee toddobaad waa loo aamusayaa waa caadi qofku isagoo garanaya ayaa halkan khalkhalkalaa ka jira marka micnaheedu ma aha inuuna qofku garanaynin laakiin hadduu halkan ku garan waayo nebi muuse ayaan leh nebi muuse calayhi salaatu wasalaam waad ku adkaysatay waaya insha allah su-aashaa jawaabteeda waxaan ku rajaynayaa in mar dambe aad garan doonto su-aashuna way iska soo dhowdaa ma sii boga waaya tee hadhay nebi muuse samada shanaad buu joogaan u malaynaya war aniga ii bedelo nambarkaa kale hadhay adiga halka nambar ee hadhay baa lagu weydiinaya sidaa magacaaga maxamed xaaji muuse faarax aare maxamed barnaamijkan hore ma uga qayb qaadatay mar iyo laba hore waan ka qayb qaatay goormay ahayd markii kugu dambaysay markii ugu dambaysay maalin dhaweyd oo halkan harawo hortiisaaba ahayd nasiibkayga oo rabadaantan ka mid ah rabadaantii hore tii hore berigaa maxaa lagu weydiiyey maxamed wallaahi su-aashii ma sii xasuusta laakiin waxay ahayd tiradaa hadday laisku geeyena boqol noqonaysa haddii la kala jarana taasi shalay ma ahayd taasi shalay ma ahayd tiro saasaa la weydiiyey ma sii xasuusta ma xisaabeed berigaana waaya taasi waxay ahayd tii shalay jawaabteeda maanta inuu sheegi doonaa kaaga sii faa'iideeyeen haddii la yidhaa maxay jawaabteedu waxay noqonaysaa haddii la isku geeyo 60 iyo 40 waa 100 haddii la kala jarana 20 baa soo hadhayay weeye taa jawaabteeda waxa laga soo gartay dalka jamhuuriyadda Djibouti xagga dambeenu ku shaacin doonaa jawaabta su'aasha weeye aad su'aashan ku soo hadhay waxay ku leedahay waa su'aasha labaad su'aashani waa su'aal iska sahlan oo diiniya waa su'aal diiniya waxaad sheegaysaa muddo intee leeg ayuu xilka hayay sayidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu والله سيدك إمسا سنة أيو حلك هيي انتي يعني يسوي طلده هيي خلافة يا waxa laga yaabaa inaad garanayso oo liqsan tahay laakiin adoo degan isu day 12 sano 16 sano balada fursad waa ku siinaya jawaabtu waad garanaysaa كل جواب توافقك ويكسر بحده لكن إن كلسوني قاطع للربع 10 سنة كوات كسنة 10 سنة كوات كسنة بالكورن هذين النقطة تي كله كوات كيسوي ها لكن تنات كوات كيسطي أيها كوات كسنة يا واسع جواب تاسي وتقولي ستي لكن وتكون نصيب ستهم أي والله وان قريم والله بيت يلا تونا دعني وان هي انت ما كبير وانا كسنة معلم باني هذه ستة سكول كان دكتور سكول كان دقا دكتور سرب بان دقي تري هوسة دحى وبري بان دقي مركي هوري يمكن دكتور هوسان دقايون سكول كي كانوا يقولون عن لي سيفي عن مدرسة waxay sheegtaa marka maadada dhigataa maadada kasta waan kala wan leeyahay xisaab dugsi hoose dhexe hoose dhexe maadada kasta waan kala dugsiga sarana English biology wax noocaas aan kala caalamka sidaan ognahay specialist baa jira maxay nooga wacan macallimiinta dugsiyada hoose dhexe inay maadada walba galaan waxa ugu wacan waxa weeyaan maadaama uu yahay iskuul hoose dhexe maadooyinkiina ay yihiin maado laga wada bixi karo صح ayaa lagu qasbaa had iyo jeer inay maadooyinka wada galaan inuu buuxiyo ama jaamacad ka soo baxaa ama dugsi sare ama college ha noqdo bas doonaa noqdo laakiin marka secondary noqoto waa inaad professional maada aad u fuusho si fiican mar hadda secondary ay tahay aad baad tahay maxamed xaaji muuse ayaa la magacayga si fiican maxamed carab markan يمنقنا وانا سي في عن مقالنا دينتا ينتا واد سكرنا بلشو مساعد بان سنه حق تي في كانوا كسوده شقيله ما شاء الله aad been soo shaqeynaa bahadiyada maanta waxaan ka wadnaa shirkadda adeega korontada ee TIC صح ee Boorama waxay ku samaysay qiimo dhimis xafiiska dad u tagto si yaro qabow oo degan oo habiya ayaa lagu soo dhaweynayaa ha marka qiimo dhimis iyo dhinaca rabadaantaba waa fursad daawad ka faa'iideysan doontaa hadii la helaan markan waa su'aale ka faa'iideysigii baa hadhay
su'aalihii ka faa'iidaysigii baa hadhay waxaa ag jooga bakaal soo dhowow sheekh ibraahim bakaal somayn magacaaga saddexaad dadka u sheeg maxamed sheekh ibraahim bakaal maxamed sheekh ibraahim bakaal halkan waxaa ku soo hadhay waa su'aalihii ka faa'iidaysigii marka su'aasha xagga su'aasha diinigaan ku siinaya adiga maadaama culimmadii gobolkan aad ka mid tahay waxaad sheegaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ugu tegey samada toddobaad ee ugu sarraysa maalintii la dheelmiyey habeenkii la dheelmiyey nebigii ugu tegey samada u sarraysa carshiga iyo kursiga ya nebi muusuha nebi muusuha ka qayb qaatii ka horreeyeyna wuxuu sheegay nebi muuse inuu haa marka taasi waxaa keenaya waa kii markii konton lagu xukumay salaada dib u celcelinayay marba shan ku celinaya sax ee lahaa dib intaa ku noqo ummadaadu ma karaysee ummadaadu ma karaysee salaada ilaa shan laga soo dhigo weeye maskaxdaasaan aaminsanay weeye waxaa samayn lahaa haddii la idhaahdo jawaabta saxda xaggan baa insha allah ka maqli doontaa haddii la idhaahdo waayahay markana su'aalaha ka faa'iidaysigu waa isdhaaf iska nasiibso halka su'aal kaloo waxaan hayaa ka faa'iidaysiya su'aashani waa su'aal soomaaliga la xidhiidha soomaaliga say isku tihiin kulley aduu in layga fiican oo suuragal waxyaabaha qaar laakiin waa run waaye gabay ma waxaan kuu sheegaya tix ka mida maase gabaya ayaa kuu sheegaya adigana waxaa lagaa rabaa abwaankii curiyey ee sameeyey waxaa tixdana ku leedahay waxaad sheegtaa boqorka boqortooyadiisu lahayn bilow iyo dhammaasho abwaankaasi sheeg cali dhuuxaadan ma ku kalsoon tahay inuu isaga yahay mise waad ku nasiibso waxaad is leedahay waana la heli karaa waana la waayi karaa waa sax waana la heli karaa waana la waayi karaa isagaan rajaynayaa waayahay insha allah waxaan kuu rajaynayaa marka dambe inaad su'aasha jawaabteeda aad garan doonto nin baa halkan marka xabadeed rabtaa inaad ka faa'iidayso tan gabayga waay soo dhowow halkan waxaa iyaag taagan nin weriye oo caana waa suxufi bilibili wuu isa soo qaaday wuu muraaqooday halkaasuu su'aashii ka jeclaystay marka su'aashaa gabayga ayuu rabaa inuu ka jawaabo bilibili waxaad noo sheegtaa abwaankii ereyadaasi boqorka boqortooyadiisu lahayn bilow iyo dhammaasho abwaankii gabayga ay ku jirta sameeyey magaciisa oo saddexan magaciisu saddexan maayo laakiin afguriyo weeyaan magaciisu saddexan maayo laakiin waa abwaan afguriyo caan uu ku yahay afguriyo magaciisu saddexan maayo ma hayo waayahay mar haddii horta magaciisii aad keentay insha allah rajayni lah ilaa horta abaalmarintan ku siin doonaa laakiin inaad magaciisa saddexan noo sheegta ka sii habboonaan lahayda abwaan afguriyo caan ku yahay waayahay maanta ku baraynaa wixii ka dambeeya waxaa la idhaahdaa axmed siciid deeriye abwaanka axmed siciid deeriye abwaan afguriye waxaan ku siinaynaa abaalmarina ay bixinayso shirkadda tik ee adeegga korontada buurama oo qiimo dhimis kuu samaysay bisha rabadaan aadna kuu soo dhowaynaysa marka ku soo dhowow baan ku leenahay shirkadda tik markan waxaan jecelahay asxaabta ay nagala socda dhinaca baraha bulshada inaan weyddiiyo su'aasha ay maanta ka soo jawaabayaan ka hor laakiin haynu sheegno jawaabta su'aashii shalay waxay ahayd waxaad soo sheegtaa laba tiro oo laysu geeyey oo marka laysu geeyana 100 marka la kala jarana 20 su'aashaasi dad fara badan baa ka soo jawaabay hase ahaatee xilli dambe qof ka soo jawaabay ayaa ku guulaystay maadaama uu asiibay shuruudaha la xidhiidha inuu sheergareeyo bostigana la igsaaro dad badan oo markii ugu horraysayba ka jawaabay sababta ay abaalmarintaasi ku waayeen waxay noqotay inayna markiiba sheergaraynin barnaamijka laakiin ay komadka un la soo ordeen halkiina ay ku dhaafeen su'aashaasi waxaa ku guulaystay nin la idhaahdo xamse jeeke oo ku sugan magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti ninkaasoo saakaannu gelin wada hadlaynay wuxuu ku guulaystay abaalmarin
ugu mahad celinaynaa ka qayb qaatahaasi oo noo sheegay weliba in barnaamijkana ay si fiican ugu xidhan yihiin marka la eego guud ahaan caasimadda magaalada Jabuuti su'aasheenna maanta haddaba adigoo raacaya shuruudahan oo muuqaalka like saaraya postigana share gareynaya kadibna commentka waxaad ku soo qoraysaa jawaabta su'aashani waxaad soo sheegaysaa nebigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kula kulmay samada ugu sarraysa habeenkii la dheelmiyey nebiga magaciisa ayaad soo sheegaysaa daawadayaal guud ahaan waxaynu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii su'aalaha rabadaanta oo maanta ay si gaara u maalgelisay shirkadda adeegga korontada ee Telesom Electric ama shirkadda ku caanbaxday Tech iyadoo kugu soo dhaweynaysa qiimo dhimis dhinaca adeegyada korontada oo ku raali geliya haddii aad ku sugan tahay magaalada Boorama waxaad soo booqan kartaa xafiiskeeda oo ku yaala bartamaha magaalada Boorama gaar ahaan sakada ka soo horjeeda masjidka Harawa guud ahaan intaas aynu ku soo afmeeraynaa tan iyo tan dib u kulmi doona barnaamijkan lamida inta ka horeysay idil ahaantii waxaad ku sii dhaafayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh